konton waddamadooda uga soo tegayaan. boqolkiiba 20 Nairobi aqallo 20,000 ah caruurtooda 40,000 ah. I'm sorry to say this. waxaa soo hara 10% baa lagu keenayaa. 10% ka laga rabaa inaad markaa lagu adoonsado oo lagugula taliyo. waxaa ka mid ah human capital resource wax yar ka taabtay waddan dadkiisii wax soo saarka raasamalkiisa ugu fiicnaa ay gaajoonayaan, ay tiraanyaysan yihiin, ay iskuul fiican helaynin. waxaad ka fili kartaa waxa innovationiska inay wax soo saaraan, inay dad maaragtay noqdaan fikraya oo ka fikraya siday uga qayb qaadan lahaayeen waddanka wax soo saarkiisa. food aid-ka waa inaan ka hadlo food aid-ka wax badan baan ka qoray. food aid-ku hadda u maleynaysaan inuu munaafacaad leeyahay wadamada Mareykanka markii ay beerahooda dawladdu ay subsidy siisay inay beeraan wheat badan oo farmerski sida imika loo leeyahay dadkii baa magaalada soo degay si loogu celiyo subsidy baa loo sameeyay oo wax soo saarkooda ah. subsidy-gii markii loo sameeyay waxay sameeyeen production-kii baa batay, meel ay geliyaan iyo storage baa loo waayay. waxaa la yidhi fikradda fiican waxa weeye aynu siino humanitarian aid ha loo siiyo. waa sax, laakiin human interest iyo ingenuity wuxuu noqday wax markii dambe dadkii wax soo saarka sida Ethiopia ama Soomaaliya oo Soomaaliya gaadhay green revolution inay maanta noqoto food dependent. waxaan arkay wadamada sida Kenya iyo Ethiopia meelahoodii productive-ka ahaa fertile land waxay ka soo saaraan flower-ka ay Valentine-ka maalinta jacaylku ay Europeanisku isticmaalaan. dadkoodina waxaa loo soo waaridaa qamadi waaweyn oo qamadiga local production-ku markuu la egyahay intan waa suuqa haddana la soo dhigo. u talagalay dawladda in la siiyo, laakiin waan ognahay cuntadaasi suuqa laga helaa waana la iibsadaa. political resources waan jeclay inaan had iyo jeer ku daro 4.5 waa waxa waddankeena ragaadiyey wey oo dad badan oo maaragtay waddanka wax u qabin lahaa maskaxdooda maali lahayd in laga doorto mid jaahil ah laakiin yes man or yes woman. marka waxaan ka rabaa inaan ka hadlo institutionska enabling environment for business. waxaa loo baahan yahay, waxaan rabaa si degdeg ah inaad u aragtaan wax cusub oo idinku cusubi ma jiraan. waa rule of law. hadda diaspora kaalaya waddanka lacag gashada dee diasporada lacagtooda waa in loo xadido. waxaa laga yaabaa say kusoo shaqeeyeen inay mas-uula xitaa soo qodayeen. marka haddaan keeno lacagta yareeda intaa kusoo daalay oon investment waddanka u geliyo oo beritoole waxii difaaca ayna jirin dee qofna ma iman maayo. rule of law waa very important. contract law, Islamic finance haddaa aragtid innaga waddankeena waddan muslina oo Islamic finance aan aqoonin weligay ma arag. waa wax lala yaabo. qofka markaad wax kala qaadanaysaan rules baa jira oo iminka wadamada Europe iyo Westigu ay ku laakiin contract haddii hadda fiiri aan rabo inaan gaari iibsado waa inaan lacag haysto. waa jiraan qolada investorska ka hadli doona. lacagtii way iska taalaa, real estate baa la geliyaa. service economy baynu nahay. markaad aragtid adduunka dhaqaalihiisana wuxuu soo maraa stages agriculture